shalay tole lagu xidhay gabilay waa aare ninkaas saldhiga ku soo booqanay ninkaas aad iyo aad ayuu u fiicnaa wax dhibaatana noomuu sheegin in si fiican loola dhaqmay ayuu noo sheegay midda kaliya ka cabanayay waxay ahayd inaanu wax waarna lagu soo qabtay jirin isagoo iska fadhiyuun loo yeedhay waxaanan filanaa in cadaaladda la horgeeyo sida sharciga nuugiyo 48 saacadood gudahood waanu sugayaa ninkaas wax dhibaato uu qabo oo hadda jira oo haysta oo noo sheegay habeeraatee ma jirto sida sharcigu dhigayna wuxuu sugayaa in la horgeeyo sharciga waxa kale oo jiri isaguna nin kale oo madaxweynuhu ka hadlay oo gobolkan gabilay isaguna ka tirsanaa oo madaxweynuhu ka hadlay yiri Djibouti ka soo noqday safarka oo madaxweynaha ka wada hadleen Djibouti oo yiri hawshaasi waan dhamaynay waanan la soo deynay insha Allah isagana madaxweynaha looga fadhiyaa insha Allah inuu hawshaasina ay sida madaxweynuhu sheegay oo dhamaato hawshaas ayaan maanta ka hadlaynay ninkaasina uu si fiican warkaas xalay markaan soo baxay anagoo xisbiga wadaniga baan maanta booqanay aare Suleymaan Colaad aare oo laba dhalasho haysta dhalashada Somaliland haysta oo tan kale haysta dhalashadiisa in muwaadin reer Somaliland halka ku xidhan waxaan markaa koowaad soo xaqiijinay ninkaas inuu gacanta Somaliland iyo saldhigga dhexe degmada Gabiley ku jiro oo aan meel la loo qaadin sharcigeennuna ma ogolaan muwaadin reer Somaliland dastuurkeena iyo maxkamadaheena haddii uu dambi galay uun baa lagu qaadayaa meel kale warka ay dadku isla dhex marayeen qaacid loo xaqiijisay maanaan arag laakiin waxaan soo xaqiijinay inuu ninkaasi xidhan yahay saldhigga ku jiro Gabiley in caafimaadkiisu fiican yahay si uu cana ciidanku runtii ula dhaqmeen annagana waa la noo sii daayay waxba waa la tusay fariintii ummadda reer Somaliland uu baaqay iyadana inay gaadhay dadkii waan ku wargelinay waxa uu noo sheegay inuu helay oo ay dadka reer Somaliland aad ugu kacaan iyadana wuxuu yiri dadkii mahad celin iyo iga gaarsiiyay bogaadin oo aad runtii ugu faraxsanaa in loogu hiliyay min bar ilaa galbeed ilaa xildhibaanada golaha wakiilada ee saaka ka hadlay arrinta iyadana warkeeda waa la gaarsiiyay wuxuu yiri dadkiina hiilka waan idinka filayay mahad celin iga gaarsiiyay intaana uu soo faray waaran la'aan baa lagu qabtay markaa wax dambi oo markaa faraha kula jiray oo markaa la wareysanay la noo sheegay haba yaraatay ma jirto qofkuna wuxuu xaq u leeyahay waaran loo soo gooyo imikana waxaanu rajeynaynaa in 48 saacadood sida uu dhigay dastuurka maxkamad lagu hor keeno eedda loo haystana ay cadaato annagu ka hor dhici mayno markaa ilaa la sheego wax lagu haysto iyo cidda haysato toona ka hor dhici mayno waxaanu ka warsuginaa in maxkamadda horteeda la keeno oo ay markaa cadaato cidda haysata iyo wax lagu haysta lagu eedeynaya waxaanu ugu baaqaynaa isaga inta kale xidhan been xorriyadooda loo soo celiyo waayo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland baa damaanad qaaday xorriyadul qowlka iyo dhiibashada ra'yiga labaduba waxa damaanad qaaday dastuurka Somaliland haddii arrintan ay suuro gasho waxay guul u tahay shacabka Somaliland ee ka jawaabay dibad iyo gudaba baaqa ka soo yeedhay maxbuuskan walaalkooda xilligan ku xidhan Gabiley arrintani waxay kaloo khatar ku tahay sida dad badan sheegayaan oo sharci yaqaani constitution-kii iyo sharcigii Somaliland oo lagu soo duulay aniga ah